tani waa dhacdo taariikhi ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo uu weheliyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyo mas'uuliyiin ka tirsan laamaha dawladda safiirka dawladda in walaalaha nahay Turkiga iyo sidoo kale madaxa shirkadda Albayraq ayaa halkan ka dhagax dhigay madaxtooyada cusub ee Soomaaliya oo dib u dhis iyo casriyeyn lagu sameyn doono dhismahan iga dambeeya oo ahaa xafiiska rasmiga ah ee madaxweynaha ayaa la dumi doonaa isla markaana loo dhisi doonaa qaab casri ah oo la jaan qaadaya madaxtooyooyinka dunida madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hadal ka jeediyay munaasabadan ayaa tilmaamay in qorshahani yimid kadib markii la dareemay baahi loo qabo dhisme madaxtooyo oo la jaan qaadi kara qasriyada looga taliya caalamka isaga oo hoosta ka xariiqay in talaabadani ka turjumayso horumarka maalinba maalinta ka dambaysa ay ku tilaabsanayso dawladnimadeenu maanta waxaan meeshaan aan isugu nimiday inaan ka wada qayb galno dhagax dhigga guriga dhismaha cusub ee xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maanta iyo biri dambe intaba xafiiskii hore waa xafiiskeena aan ku shaqaysanayno waa kana muddo dheer ayuu ahaa xafiiska madaxweynaha uu ku shaqeeyo marka culaysyo badan iyo xagga muxuu ahay jiritaankiisa maadaama guri aad u gaboobay oo ahay waxaan rabnaa inaan marka aan maanta halkaas aan soo dhagax dhignay guri cusub laga dhisi doonaa halkan madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa dhanka kale uga mahad celiyay dawladda Turkiga gaar ahaan shirkadda Albayraq oo fulinaysa dhismaha madaxtooyada cusub ee dalka isagoo ku amaanay dawladda iyo shacabka Turkiga kaalinta walaalnimo ee mar walba u buuxiyaan shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo dawladda Turkiga iyo maxaan ku raashay shirkadda Albayraq oo intaba muxuu ahay naga saacideen in xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya la dhiso dib loo dhiso xafiiskan la dumiyo xafiis cusub laga dhiso dawladda Turkiga walaalaha aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa shirkadda Albayraq ayaduna aad iyo aad ay u mahadsan yihiin walaalkeen Axmed Albayraq oo maanta u soo safro u yimiday munaasabadan muxuu ahay dhagax dhigga ah inuu nagala qayb galo noogu yimidna waa mahadsan yahay safiirka iyo muxuu ahay akhyaarta kale ee ka tirsan safaaradda iyo shirkadda intaba aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa dhismaha cusub ee madaxtooyada Soomaaliya halkan madaxweynaha jamhuuriyaddu maanta uu ka dhagax dhigay ayaa loo naqshadeeyay qaab casri ah oo la jaan qaadaya madaxtooyooyinka dunida Shucayb Maxamed warbaahinta qaranka fila Soomaaliya